xilligan tiknoolajiyadu maaha aalad lagu wada xidhiidho oo keliya. maanta waa adeegaha ugu weyn ee ay aadamuhu haystaan. wax kastaana waxay isku bedelayaan mid ay maamusho tiknoolajiyadu. hal kombiyuutar ayaa qaban kara kumanaan shaqo ilbiriqsiyo gudahood. aadamuhu boqolkii sano ee lasoo dhaafay waxa ay ku dagaalamayeen shidaalka dhulka hoostiisa ku jira. laakiin maanta garaadka macmalka, shabakadaha xawaaraha sare leh iyo mashiinada iswada waa shidaalka cusub ee lagu dhisayo ciidanka iyo dhaqaalaha boqortooyooyinka dunida. barnaamijkeena tiknoolajiyada ee toddobaadkan waxaan ku booqan doonaa dekedda ugu weyn adduunka, halkaasi oo ay taalo tiknoolajiyada uu caalamku mustaqbalka higsanayo. halkani waa magaalada ugu dadka badan dalka Shiinaha. Shanghai waxaa ku nool 3 milyan oo qof, tiradaasi oo guud ahaan ku dhow tirada qoomiyadda Soomaalida. balse halkan hal magaalo ayay ku nool yihiin. magaaladan waa xarunta dhaqaalaha ee Shiinaha. sanadkiina waxay soo saartaa lacag gaadhaysa $660 bilyan oo dollar, taasi oo ka dhigan haddii ay ahaan lahayd magaaladani dal madax bannaan inay ku jiri lahayd 20 dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, kuwaasi oo la magac baxay G20. magaceeda waxaa ku lamaan magaca dekedda ugu mashquulka badan adduunka, Port of Shanghai ama Yanqing Port, halkaasi oo ah xarunta halbowlaha dhaqaalaha Shiinaha. dekedda ugu weyn adduunku si toos ah uguma taalo xeebta beriga ee Shanghai. si aad u gaadho dekeddan oo ku taala badweynta ka baxsan xilliga badda kuna taala jasiiradda badhmacmalka ah ee Yangshan, waa inaad sii martaa buundada dheer ee Donghai Bridge, taasi oo gaadhaysa 32 kiiloomitir iyo badh sii dul maraysa biyaha badda. buundadan waxaa la bilaabay sanadkii 2002 waxaana lagu dhammaystiray 3 sano oo keliya. dhismaha bridge-kana waxa uu astaan u yahay farshaxanimada iyo awoodda aqooneed ee injineerada Chinese-ka. marka aad gaadho bartamaha buundadani waxaad la kulmaysaa tiirarka la yaabka leh ee ku yaala bartanka badda. tiirarkan waxaa loogu talagalay inay hoos maraan maraakiibta yaryar ilaa nooca dhexe, kuwaasi oo isaga gooshaya dekedaha yaryar ee ku yaala agagaarka deegaanka, isla markaana ku sii socda dekedda weyn si aanay xannibaad ugu noqon bridge-ku isku socodka badda. dhererka bridge-ka hoostiisu waxa uu gaadhaa 40 mitir marka la joogo tiirarkan dhaadheer. buundadu waxa ay leedahay jid ama haad u gaara baabuurta xamuulka ah ee iswada. sidoo kale waxaa buundadan ku xidhan internet 5G ah, kaasi oo fudaydinaya in gawaarida robot-ka ahi ay bridge-ka ku safri karaan iyada oo xogtooda si toos ah loola socdo. shubka iyo biraha buundadan waxaa ku dhex jira kumanaan qalab dareemayaal ah, kuwaasi oo cabiraya xawaaraha dabaysha badda, gariirka iyo miisaanka gawaarida dusha sare ee bridge-ka maraya, si looga hortago khatar kasta oo suurtagal ah. sida la yaqaano, biyaha badda iyo biruhu waa isku cadow, oo biruhu waa ay midhaan marka ay la kulmaan biyaha dhanaan ee badda. si taasi looga hortago, bridge-kan waxaa ku xidhan nidaam koronto oo xakameynaya cusbada ku jirta biyaha, si biraha ku jira shubka hoose aanay weligood u daxalaysan ama aanay ula kulmin dhaawac kaga yimaada dhanka biyaha cusbada leh. gawaarida xamuulka ah ee iswadaana waxay halkan u maraan qaab u nidaamsan sida tareenka oo kale. waxa ay ku socdaan xawaare isku mid ah, waxaana isku jiraan masaafo isku mid ah. marka aad soo gaadho jasiiradda Yangshan, oo ah jasiirad yar oo lagu daray qayb macmal ah, waxay indhahaagu si toos ah u qabanayaan farshaxanimada iyo injineernimada ku duugan dekedda ugu mashquulka badan uguna weyn adduunka. dekeddani waxa ay ka kooban tahay 4 fays ama 4 qaybood, laakiin qaybta aynu maanta u soconnaa waa qaybta 4aad ama qaybta loogu magacaabo Phase 4. halkan marka aad soo gaadho waxaa kugu yaraanaya inaad aragto mashiino ay bani aadamku wadaan. waxa ugu horeeya ay indhahaaga soo jiidanayaan waa baaxadda weyn ee aagga kontiinarada, halkaasi oo ay yaalaan qolaal kontiinar.
laakiin halkan ma joogo qof aadama ah loomana ogola wax kasta oo halkan ka socdana waxa maamulaya mashiinada robotka ah ama ku shaqeynaya garaadka macmalka. halkan waxa xawaare sare ku socda mashiinada AI-ga kuwaasi oo khatar gelin kara qof kasta oo soo dhex gala goobtan, waana sababta ay uga caagan tahay inuu aadamuhu soo galo mashiinadan haya shaqo maalmeedka ay caalamka intiisa badan qabtaan dadku. shaqada baaxadda weyn ee dekedda waxaa iska kaashanaya shabakadda internetka ee 5G oo xawaare sare leh, garaadka macmalka ah oo dhaqaajinaya biraha iyo mashiinada qaada koontiinarada, iyo adeega cloud computing oo kaydinaya xog kasta oo dhacaysa ilbiriqsi kasta. wiishashka waaweyn ee midabka cas waa kuwa dejiya koontiinarada isla markaana rara maraakiibta. sidee u shaqeeyaa adeega otomaatiga ah ee rarista iyo dejinta maraakiibtu? marka uu markabku ku soo dhawaado dekedda, nidaam software oo dekeddu ay leedahay kaashanayana kaamarooyinka iyo sansarada ku xidhan dekedda ayaa akhriya xogta koontiinarada saaran markabka. kadibna waxaa markabka loo diraa wiishka ku habboon. isla nidaamka softwareka dekedda ayaa wiishka u soo dira xagga markabka isagoo siinaya xog dhammaystiran sida nooca koontiinarka la qaadayo, gaadhiga qaadaya iyo goobta la dhigayo. wiishku waxa uu leeyahay kamarado nooca 3D ah kuwaasi oo isticmaalaya laysar iyo dareemayaal xisaabinaya fogaanta, kuwaasi oo ogaanaya inta ay isku jiraan geesaha koontiinarka, ballaca iyo dhererka koontiinarka, iyo xog kasta oo ku saabsan koontiinarka oo looga baahan yahay in la qaado. marka uu wiishku koontiinarka kor u qaado, si otomaatig ah waxa uu xisaabiyaa xawaaraha dabaysha iyo xoogga ka hor imanaya si uu uga hortago inuu ka hor yimaado awood ka badan awoodda uu koontiinarka ku sido, taasi oo keenaysa in si la hubo koontiinarka loo gaadhsiiyo gaadhiga ama markabka la saarayo. isla xilligaasi waxaa wiishka hoos imaada baabuurkii qaadi lahaa oo isna haysta xog kasta oo ku saabsan koontiinarka, sida goobta la dhigayo, nooca koontiinarka iyo qaabka loo qaadayo. sidaasina waxa uu ku geynayaa goobtii loo asteeyay koontiinar kasta. xawaaraha internetka ee 5G dhammaan shaqada ka socota dekedda ee ay maamulayaan mashiinada ku shaqeynaya garaadka macmalka ah waxay xogta ku wadaagayaan shabakadda 5G, taasi oo isticmaalaysa xadhkaha fiber optiga ah oo xogta ku gudbinaya xawaare lamida ka iftiinka. shabakaddan internetka ee xawaaraha sare leh waxaa si wada jira u dhisay shirkadaha tiknoolajiyadda Shiiniiska ee Huawei iyo China Telecom. shabakadda xawaaraha sare leh waxay keenaysaa in xidhiidhku uu noqdo mid xawaare sare leh, isla markaana waxa ay ilaalinaysaa inaanay dhicin wax daahitaana. wax walbana waxa ay ku dhacayaan isla waqtiga amarka la bixiyay. dekedda qaybta garaadka macmalka ku shaqeysa waxaa laga maamulaa xafiisyo ku yaala magaalada Shanghai, kuwaasi oo leh shaashado waaweyn oo lagala socdo shaqada dekedda. taasina waxaa suurtageliyay adeega 5G iyo xadhkaha fiber optiga kuwaasi oo injineerada u ogolaanaya inay wax kasta oo dekedda ka socda ku arkaan wax ka yar 1 millisecond. tiknoolajiyadda baabuurta ee dekeddan ka shaqeysa. baabuurta halkan ka shaqeysa waa qaar naqshad cajiib leh. ma laha qolka darawalka, steering laga wado, iyo wax kasta oo ay korka sare ku leeyihiin baabuurta caadiga ah. baabuurtan waxay leeyihiin sagxad keliya oo ay ku qaadi karaan koontiinarada. gawaadhidani ma laha dhinac hore iyo dhinac dambe, labada dhinacna waa isku mid, isku naqshad iyo isku awood, taasi oo u sahlaysa inaanay u baahan inay kala jeesadaan marka ay laabanayaan. dhulka hoose ee terminaalka dekedda waxaa ku jira kumanaan magnet iyo jebis ah, kuwaasi oo uu raaco baabuurku si aanu jidka uga baydhin ama aanu ugu dhicin kumanaanka gaadhi ee shaqeynaya isla markaana maraya jidadka u dhow. sidoo kale baabuurtan waxaa ku rakiban raadaar ku shaqeynaya laysar iyo kamarad wax u duubaysa 360 digrii, taasi oo u fududaynaysa in haddii baabuur kale ama shay kale oo caqabadihii uu baabuurka ku yimaado inuu si dhaqso ah u istaago ama uu xawaarihiisa u dhimo.
gaadhi kastaana waxa uu si toos ah ugu xidhan yahay nidaamka software-ka maamulka dekedda, kaasi oo haya xogta baabuur kasta, halka uu socdo, jidka uu ku jiro, iyo gawaadhida kale ee jidka kula jirta, taasi oo xidhiidhinaysa baabuurta laftooda. gawaadhidani dhammaantood waxa ay ku shaqeeyaan korontada, waxaanay qaadi karaan in ka badan 60 tan markiiba. waana arrin kale oo muhiim ah in baabuur koronto ku shaqaysa ay awoodi karaan culays intaa leeg. baabuurtan oo ku shaqaysta bayteriyo, marka uu ka dhammaado bayteriga baabuurka, isaga ayaa si iskiya u taga goobta lagu bedelo bayteriyada, halkaasi oo uu yaalo rabad kale oo 6 daqiiqo gudahooda kaga bedelaya bayterigii hore kuna rakibaya bayteriga cusub. baabuurta elektarooniga ah isla markaana si iskooda isku wada waxay shaqada dekedda ka dhigeen mid fudud, shaqaynaysa 24 saacadood, iyada oo haba yaraatee aan la luminin wax waqtiya. inkastoo qaybtan shaqada ugu badan ay qabtaan mashiinadu, haddana halkan waxaa jooga koox yar oo dad ah, kuwaasi oo isugu jira farsamo yaqaano, ilaaliyayaal, iyo injineero la socda howlaha terminaalka, kuwaasi oo degan meel u dhow terminaalka. ugu dambayntii, waxaynu eegaynaa awoodda dekeddan ay u leedahay dhoofinta iyo soo dejinta alaabooyinka kala duwan ee ganacsiga caalamiga ah. wiish kasta oo dekeddan ku xidhan waxa uu saacaddii rogi karaa ama rari karaa 40 konteynar. dekeddan oo ka kooban 4 fays, taasi oo 3 fays oo ka mid ah ay u shaqeeyaan sida dekedaha caalamiga ah ee kale, marka laga reebo fays 4 oo ay dhammaanteed shaqada qabtaan mashiinada AI-ga ah iyo baabuurta garaadka macmalka ku shaqaysa isla markaana isticmaasha electricity-ga. waxay leedahay awood gaar ah oo aanay lahayn dekedaha kale ee caalamka ku yaala. dekeddani waxa ay isku dar sanadkii qaabishaa 40 milyan oo konteynar oo lagu qiyaasay qiyaasta 20 fiid ah, taasi oo ku dhow konteynarada soo mara dekedaha Mareykanka oo dhan, kuwaasi oo lagu qiyaaso 60 milyan oo konteynar sanadkii. dekeddan waxaa toddobaad kasta yimaada 600 oo markab oo nooca waaweyn ah, waxaana soo gala in ka badan 300 oo jid oo caalami ah, kuwaasi oo ay maraan maraakiibtu. Shiinaha dhexdiisa waxaa dekeddan ku hareeraysan 50 dekedood oo yaryar, kuwaasi oo laga soo qaado alaabooyinka uu Shiinuhu u dhoofinayo adduunka intiisa kale, lana geeyo dekeddan si loogu raro maraakiibta waaweyn ee caalamiga ah. Shanghai iyo dekedeedu maanta waa mashiinka ugu weyn ee wareejinaya ganacsiga caalamiga.